calaykum waan ku salaamo daawade mar kale ayaynu bartan ku kulannay sida caadada ahayd waxaadna iga dhowr sugaysaa inaan kuu soo gudbiyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu qurxoon caalamka Dubai ayaan maanta ka wada sheekaysan doonaa waxaana kugu fahansiin doonaa waxyaabo badan oo adiga aadan ka ogeyn magaaladan si aan u bilowno muuqaalka haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro muuqaalkana like saar waad ku mahadsan tahay taasi waxay inoo noqonaysaa dhiirigelin Dubai waa magaalada ugu dadka badan marka loo eego Imaaraadka Carabta waxay ku taalaa bariga jasiiradda Carabta oo ku taala xeebta gacanka Bershiya Dubai waxay eegsanaysaa inay noqoto xarunta ganacsiga galbeedka Aasiya sidoo kale waa xarunta ugu weyn ee gaadiidka caalamiga ah ee rakaabka iyo xamuulka dakhliga saliidda wuxuu gacan weyn ka geystaa dardargelinta horumarka magaalada oo horeyba u ahayd xarun weyn oo lagu ganacsado wax soo saarka saliidda ee Dubai wuxuu ka samaysnaa boqolkiiba 2.1 dhaqaalaha Imaaraadka gacanka Bershiya sanadkii 2008 waana xarunta ganacsi gobolka iyo sidoo kale guud ahaanba loogu tilmaamay inay tahay mid caalami ah laga soo bilaabo horaantii qarnigii 20aad dhaqaalaha Dubai wuxuu ku tiirsanaa dakhliga ka soo gala ganacsiga dalxiiska duulista guryaha iyo sidoo kale adeegyada maaliyadeed marka la eego xogta dawladda dadka ku nool magaalada Dubai waxaa lagu qiyaasaa 3,400,800 ilaa 8 Sebtembar sanadkay aynu ka soo ambabaxnay ee 2020 aragtiyo badan ayaa la soo jeediyay oo ah asalka ereyga Dubai hal aragti ayaana soo jeedinaysa ereyga loo adeegsan jiray inuu yahay suuqba mahmaah carabi ah ayaa tiraahda daba Dubai oo macnaheedu yahay waxay la yimaadeen lacag aad u tiro badan sida uu qabo Federal Handel oo ah aqoonyahan ku xeeldheer taariikhda iyo weliba dhaqanka Imaaraadka gabayagii iyo sidoo kale aqoonyahankii Ahmed Mohamed Obid wuxuu raacay isla ereygii laakiin micnihiisa si kale micnihiisa uu si kale u dhigay kaasi oo ah ayax caruur ayaxa fara badan awgeed deegaanka ka hor inta uusan degsiimo uusan noqon taariikhda tegitaanka aadanaha ee aaga hadda lagu qeexay Imaaraadka Carabta waa mid hodan ah oo adag waxayna tilmaamaysaa xiriir ganacsi oo ballaaran oo ka dhaxeeya ilbaxnimooyinka dooxada Indus iyo sidoo kale Mesopotamia waxyaabaha qadiimiga ee laga helo Imaarada Dubai gaar ahaan Al-Ashosh Al-Sufyan iyo sidoo kale marinka taajirnimada ee Sarukh Al-Hadid waxay muujinaysaa degitaan ilaa xiliyadii Abeyd iyo sidoo kale Hafid xiliyadii Al-Narir iyo sidoo kale Wadi Suuq sidaas silacina saddexdii daa ee birta Imaaraadka aag waxay u yaqaaniin dadka reer Sumer magan waxayna ahayd isha laga helo badeecadaha birta gaar ahaan naxaas aaga waxaa ku daboolay carro qiyaastii 5,000 oo sano ka hor markii ay xeebta dib ay ugu laabatay gudaha kana mid noqotay xeebta magaalada ee hadda jirta farsamooyinka islaamka ka hor waxaa la helay qarniyadii 3aad iyo sidoo kale 4aad ka hor intuusan islaamku soo gaadhin deegaanka dadka ku dhaqan gobolka waxa ay caabudi jireen baajir ama bajar kadib markii diinta islaamka ku faaftay gobolka khilaafadii umawiyiinta bariga islaamka wuxuu ku soo duulay koonfurta Carabiya waxaana ka eryay siyaasiyiintii
xusuustii ugu horeysay ee Dubai waxay ahayd 1995tii kitaabkii juqraafiga oo uu qoray juqraafiga reer Andalus Arab Abu Abdullahi al-Bakri. Dubai iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano Transial States waxay muddo dheer ahaayeen maxamiyad Ingiriis ah, halkaasi oo dowladda Ingiriiska ay daryeesho siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba difaaca. sidaas lacayna weli u gaara qaadidada u dhaxaysa taliyaasha gacanka bariga. natiijada heshiiskii la saxiixay 1892 ee loo yaqaan ama loogu magac daray exclusive tani waxay ahayd in wax badan loogu bedelo ku dhawaaqistii PM Harold Wilson 16 Janaayo 1968 in dhammaan ciidamada Ingiriiska laga saaro bariga Cadan. go'aanku wuxuu ahaa in la dejiyo imaaraadka xeebta oo ay weheliyaan Qatar iyo sidoo kale Bahrain si wada xaajood cabsi leh loona buuxiyo booska siyaasadeed ee ka bixitaanka Ingiriiska uu ka tagi doono. Dubai waxay leedahay jaangooyo waxbarasho oo aad u firfircoon kuwaas oo caan ku ah qiimeynta iskuulka, laakiin dhab ahaantii wuxuu leeyahay sharci ballaaran marka ay tahay hagaajinta dugsiyada ee imaaraadka. baaritaanadeeda dabcan waxay ahaayeen kuwa muhiim ah, shakina kuma jiro in tayada dugsiyada ay soo hagaagtay natiijada ay ka dhalanayso fulintooda. wadar ahaan 17 dugsi ayaa hadda lagu qiimeeyaa heer sare ilaa iyo sanadkii aynu ka soo amabaxnay 2020 iyo sidoo kale 40 dheeraada oo lagu qiimeeyo inay yihiin kuwa aad u fiican. waalidiinta ayaana badanaa aad u kontaroola waxbarashada ubadkooda. jaamacadaha ugu caansan Dubai waa jaamacadda Mareykanka ee Dubai, Halt International Business School, Al Junayd University, the American College of Dubai, British University in Dubai oo bixisa koorsooyin ku saabsan maamulka ganacsiga, injineeriga, dhismaha iyo sidoo kale arrimaha gudaha. All those are like located at gathering the just you have to be at the level of the water. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow subscribe saar.